والله wiilka geesinimadiisa oo man ka helay waayo hadiya habeen bay inoogu jiraan wadadka mar walba nabadana iyo suga marka geesinimadiisa kaliya ka helay waxa qoonaan u mari may waliga maarid baraha bulshada ma ku bartay may kulli horta ismilihi qaab kala wali xiriirisa jirtay teeda labaadna inaan wax qarqarsado ma aan rabin wax walba waxayga warkayga dhan nooc cadaada rabay ana wiilka jeclaaday oo dalbaday ها ويل waxay la soo hadlay ugu dhahay wiilka walaaladii baan nahay haddana ugu fogiyay xataa mar waxay la soo hadlay wiil ciidan ay ugu dhahay isla joognaa laakiin hadda goobta wada joognaa laakiin isku ma dhawin aad buu u faraxsan yahay aad baan anaguna ugu hambalyeena adigana sidoo kale ugu hambalyeena wali wiilka ma isma qashan say ma wada hadashay wali ma wiilka codkiisa ma waqa telefonkiisa iyo waxa ma heli ha laakiin madaxda ay la soo wada hadasho okay madaxda deegaanka oo dhan bay la soo hadashay soo dambeeyay fariin wallahi aad baan ugu faraxsanaa oo ugu farxatahay waxaan jecelahay gabdho badan oo sideeda inay ugu dabadayda ma raba hadii la helo insha Allah qaraarkaas marka waa mid aad ku yaalo noloshaada aad ka go'an ha naam ay saan isleeyahay wayde isla isku dibadaan hirgeli ha insha Allah ha wajirti arrin waxa dhacday la sheegayay inay miino meel ku aaseen la shabaabto oo yaani ciidanka dhan isugu dhaaf okay marka geesinimadaas igu soo jiitay okay wallahi waxaan leeyahay de hasameeyana arintan sameeyo kale gabdhaha dhan ha si fiican dalkan iyo ciidankeena gaarka xoogan iyo booliska aad baan u jeclay nolosheedina waan jeclaa ciidankaanu hadaba ma aha laakiin wiligeeba ciidanka waan jeclaa waxa la ay gabdho badan oo sayda wiilasha saasoo kala haw sameeyaan ani hadda wax cilad ay haysatay ma jirto oo wiilka ku gal isle gabadh yar baan nahay caafimaad qabta ilaa 6 xado dhameystiray calaflaanimo ay soo toon wiil baan la sheekaysta laakiin anaga geesinimadiisa wiilka ka hela gabdho badan waxa jecelahay saasoo kala wada helaan wiilal badan